kulanti wanaagsan saaxiibayaal maanta halkani waxaan idinkugu soo gudbin doonaa qiso aad u xanuun badan oo aan hubo inaad ka heli doontaan. qisadani oo aynu ugu magac darnay guurkii geeridu ka dambeysay waa qiso xanuun badan. qisadani waxaana la wadaagay gabar ay ku dhacday waxayna ku bilowday hadalkeedii sida tan: waxaan ahaa gabar xilligaasi madaxa soo qaadaysay oo waxaan maalin si kadis ah meel isugu aragnay wiil dhalinyaro ah aadna ii soo jiitay quruxdiisa. kadib halkii ayaan isku baranay wuxuu ahaa wiil ahludiin ah, akhlaaq leh iyo degnaan Rabbi u dhaliyay. laakiin maanan ogeyn in maalin uun darteeda loo dili doono ayay tiri ayadoo ilmeynaysa weliba gabadha qisadan nala wadaagtay. muddo markaan isla soconay ayaan ku heshiinay inuu reerkayga iga soo doonto. markuu isoo doontay ayaa waxaa ka biyadiiday hooyaday oo tiri kuuma qalmo wiilkaas, iyadoo ka fiirinaysa weliba baahiyo markaas asaga ku hareeraysnaa iyo qabiilka uu wiilka ka dhashay oo ay hooyaday diidanayd. waxayna ku tiri maya, ninkaas kuguma ogi oo laguma siinayo. aabba ayaan garab ka helay oo yidhi gabadhayda ninka ay keensatay ayaa lagu darayaa, mana u diidayno, wuxuu raba ha ahaado. ninkani soo ma aha nin Soomaali ah oo aan isku diin nahay, waan siinaynaa gabadheena. ugu dambeyn hooyo ayadoo diidan oo aysan raalli buuxda ka ahayn ayaa wiilkii la isiiyey. laakiin guurkii kadib maxaa dhacay? markaan toddobada ka baxnay ayaa maalin guriga waxaa u soo dhacay 8 nin oo hubaysan oo weliba wata qoryaha AK47ka markay saacadu ahayd 8 duhurnimo. aniga iyo isagaba waxaan ku jirnay qolka jiifka, waxayna noogu soo galeen qolka. waxaa la socday hooyo oo tiri waa kan ninka garaaca. meel kale kama aysan garaacin, xaniinyaha iyo meel walba ay u arkeen inuusan ka nuxsan doonin ayay ka tumeen. anigana guriga ayaa xoog laygaga bixiyey, gaari ayaana laygu soo qaaday anigoo ilmeynaya weliba. hooyaday ayaa igu tiri waa kaa ninka aan kaa celcelinayo oo aan ku lahaa ka har, maanta abaalkiisa ayaan marsiiyey, adiguna xabsi ayaan ku dhigi doonaa haddaan wiilkaas mar dambe kaa maqlo. wiilkii reerkiisa ayaa ugu yimid goobtii ama gurigii. markii la weydiiyey wuxuu ku jawaabay si aysan labada reer isugu dhicin darteeda, aniga dhalinyaro ayaan isdagaalnay ayaa sida tan ii galay. isla markiiba xaaladiisa oo liidatay awgeeda dibadda ayaa loo qaaday caafimaad. ugu dambeyn dalka Suudaan ayuu ku geeriyooday ayay tiri iyadoo ilmeynaysa weliba. ina weydiisay aniga oo ay qisada ii soo dirtay, aniga wax dembi ah miyaan ku leeyahay keeskani dhacay ama dhibkani hooyaday ay dhigtay? hadalkeeda iyadoo wadata ayay tiri hooyo waxay la xiriirtay intuusan wiilka dhiman ka hor wiilka reerkiisa, kuna tiri ii fura gabadhayda, nin xanuunsan gabadheeda ma qabaye. ayadoo dilka wiilka iska leexinaysa, reerka wiilka ayaa ku yidhi bal wiilka hanoo soo caafimaado. suga way diiday hooyo. arrintii gar ayaa loo fariistay. wiilka reerkiisa ayaa waxay dhaheen madaxa gabadha naga gata maadaama aad idinka codsanaysaan furiinka. mid ka mida dadkii aniga xaggayga ka socday ahaana maleeshiya beeleed fadhiyey goobta ayaa yidhi ma annagoo reer hebela madax gabar iyo lacagna weydiin kartaan? intuu xanaaqay ayuu bastoolad la soo baxay. odayaashii wiilka la socdayna ayuu xabad ku riday, laakiin xabaddii waxay ku dhacday awowaheyga oo ahaa hooyo aabbaheeda goobtana fadhiyey. halkii naf lama dhaafin. innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. hooyo waxay islahayd iyo ninka meesha fadhiya bastoolada la soo baxay xabaddeeda waxay islahaayeen wiilka reerkiisa dhibaateeya, laakiin hooyo aabbaheeda ayay xabaddii ku dhacday. ugu dambeyn isagii ayaana ku geeriyooday goobtii. sidaas ayaa laba naf darteeda loogu gooyey. waxaan isweydiiyaa maanta oo aan ahay hooyo haysata 4 caruur ah, maxaa dembi oo aad ku leedahay arrinkan? qisadan haddii aad dhammaysatay like garay, siina sheer garay si ay dad badani u arkaan qisadani xanuunka badan leh.